بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناكسن صاحبada yowmeel walba aad dunida ka joogtaan soo dhawaada mar kale waxaan ku soo qaadan doonaa dagaalkii gobolka bariga dhexe oo dib u qaraxay ciidanka ilaalada kacaanka dawladda wadanka Iran oo weerar culus ku qaaday mid kamid ah maraakiibta dagaalka dawladda wadanka Mareykanka ciidanka dawladda wadanka Mareykanka oo iyagu magaalooyin ku yaal gudaha wadanka Iran weeraray xaaladda gobolka bariga dhexe mar kale ayay cirkas ku sii shareeraysaa wararkii ugu dambeeyay iyo diyaar garow culus iyo hub aruursi qaruul caadi ah oo mar kale ayuu barnaamij ku soo qaadan doona saacadii u dambeeyay wararkii ugu yaabka badnaa ee dhacay maxaa keenay in dawladda wadanka Mareykanka Iran weerarto sootii Donald Trump la heshiis ayanu qarka u saaranahay barnaamijka ayaan ku soo qaadan doona saacadii u dambeeyay wararkii dhacay ee aad ku xisaab badnaa qaar ka mid ah wadamada Carabeed oo iyaguna diyaar garow dagaal ku jiro waa kuwa barnaamijka ku soo qaadan doona hadii Allah weyn ee waaxidka u raali ka noqdo soo dhawaad mar kale wagaag militariga dawladda wadanka Mareykanka gaar ahaan ciidanka badda ee ku sugan ee biyaha la yiraahdo Carabta ayaa weerar ku qaaday laba markab oo ay leedahay dawladda wadanka Iran labada markabna mid kamid ah waxa uu siday shidaal kan kalena waxa la weeraraya in uu markaas isagu soo galayay magacanka la yiraahdo Hormuz ciidanka dawladda wadanka Mareykanka ayaa weeraraya in markabkaasi uu ka dhaga adeegay baaqay u jeediyeen isla markaana inuusan gali karin Hormuz iyo sidoo kale dekedaha wadanka Iran laakiin markabka maadaama dawladda wadanka Iran ay leedahay waxa uu ka dhaga adeegay ugu dambeyntina weerar ayaa lagu qaaday dhinaca kalena waxa sidoo kale markii markabkaasi ay weerareen durbaba ciidamada Mareykanku ay weerareen dekada la yiraahdo Bandar Abbas ee ku taala koonfurta wadanka la yiraahdo Iran intaas loogama harina jasiiradda la yiraahdo Qashim ayaa weerar kale lagu qaaday waxaana la sii raaciyay weeraro kale oo culus laakiin inta wixii ka dambeeyay ciidanka ilaalada kacaanku si weyn u careysan ayaa wacd ku maray jawaab foolxun inay bixin doonaan kama gaabsano xoogaga gobonimo doonka reer Iran iyaguna gantaal isdaba joog ah iyo diyaarado drones ah ayay markaas ku weerareen maraakiibta dagaalka ee dawladda wadanka Mareykanka ee fadhiya xeebaha dawladda riman dulmiga isu tag Imaaraadka Carabta ayaa noqon doona mid kamid ah gobolada ama wadamada foolad ku noqon doona dagaalka soo aadan sida ay ku hajabayso dawladda wadanka Iran 3 toddobaad kadib oo nabad iyo colaad mid aan lagu joogin hadda sida ay weerarayeen ciidamada kacaanka wadanka Iran guud ahaan baxbad joojinta ayaa burburtay ayay yiraahdeen labada markab ee dawladda wadanka Mareykanka ay weerartayna waxay tusaale u tahay bay yiraahdeen in aanay dawladda wadanka Mareykanka marna aan nabad ka soo food lahayn sidaas daraadeed wixii ku gaadan lahaa waxa la kuma galbayaan watii la yariye waxay soo diyaarinayaan ciidanka ilaalada kacaanka dawladda wadanka Iran marka jawaab culus oo la bixiyo sarkaal sare oo hadlay ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iran ayaa yiri xabad joojin wax la yiraahdo ma jirto way dhamaatay markii horebana dhinaceena ayay ku taaganayd ayuu yiri waxaana hadda wixii ka dambeeyay dagaalkii dib u bilowday ayay yiraahdeen ciidanka ilaalada kacaanka dawladda wadanka Iran iyo sidoo kale militariga wadanka Mareykanka oo kaashanaya caloosha u shaqeystayaasha Carabeed ee gobolka markaas khariijka jooga ayaad muddo mar kale dagaalkii inuu qarxay inkastoo ilaa iyo hadda jawaab culus oo kaliya ay bixiyeen dawladda wadanka Mareykankana aanay sheegin waxa ku dhacay maraakiibteeda laakiin durbaba isu tag Imaaraadka Carabta ayaa farta lagu fiiqaya inkastoo ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iran weerarada lagu qaaday magaalooyinka Bandar Abbas ay kamid tahay ee koonfurta wadanka markaas Iran ay si weyn isaga caabiyeen haddana labadaas markab inay ololayaan ayaa la weeranaya waxa dhinaca kale la weeranaya sida telefishinka Al-Arabi Al-Akhbar uu sheegayo inay socdaan dadaalo badan oo diblomaasiyadeed waxaana sheekadan caan ku ah inta badan Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Israa'iil dhibaatada ay xabad joojinta gudaheeda ka geystaan kuma geysta marka la joogo goobaha dagaalka inta badan xabad joojin intay ku gabadaan ayay dhibaato culus oo kala sameynayaan maxaa yeelay dawladda wadanka Mareykanka marka xabad joojinta ay cusubtay laga aqbalay ayaa mar kale waxa muuqanaya in guud ahaan dekedaha wadanka Iran hadda marka la saaray cunaqabateen culus Iran waxay leedahay inkastoo muddo badan dulqaadanayeen laakiin haddana tan laguma sii dulqaadan karo ayay leedahay inta badan wadamada khaliijka ayaa heegan buux ku jira sida qaar ka mid ah warbaahintu ay warinayaan wadamada Kuwait iyo sidoo kale Saudi Arabia ayaa iyaguna si weyn ugu soo horjeedsaday damaca madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump inkastoo waxa ay ka qaban karaan bay aad u adagtay haddana dhinaca kale culays xoog leh ayay ku noqdeen howlgallada militari oo qarsoodi ah oo dawladda wadanka Mareykanka ay doonaysay inay Iran ku qaado waxaad moodaa mar kale colaadii gobolka bariga dhexe in albaabada loo furay wayna adkaan doonto sida qaar ka mid ah wariyaasha goobjoogayaasha iyo sidoo kale muxalliliinta ka hadlaya markaas ay dagaalka dib u qarxay ee dawladda wadanka Iran iyo Mareykanka oo si xumaan karo dhawaan ayay ahayd markii maamulka gumeystaha Israa'iil si weyn isu diyaariyeen waxaana ay wacd ku mareen in dagaalku ay dib ugu laaban doonaan dawladda wadanka Mareykanka ayaa la weeranaya xabad joojintii markii hore iyadoo ay keensatay dhibaatadu in ay ahayd dawladda wadanka Mareykanka oo wajahaysa rasaas la'aan u dar iyo hubka oo isaguna si dhamaanayay hadda marka wixii yeelay wadamada la isku yiraahdo Yurub iyo NATO ayaa dawladda wadanka Mareykanka soo daaburatay waxa si lama oga dagaalkan inuu noqon doono mid isdaba joog ah iyo telefoonada iyo dadaalada diblomaasiyadeed oo inta badan soconaya habaha uga badnaa
badnaadaan wadamada khaliijka oo calacalaya dowladda wadanka Turkiga iyo Pakistan oo iyaguna dhinaca Mareykanka taagan haddana wali dadaalo culus oo diblomaasiyadeed ayaa soconaya dowladaha Ruushka iyo Shiinaha ayaa iyaguna sheekada markaas fooda ka marka ayaa dowladaha Ruushka iyo Shiinaha ayaa iyaguna waxa soconaya sheeda ka daawanaya inkastoo go'aan ay soo abaabuleen wadamada isu tag Imaaraadka Carabta iyo guud ahaan khaliijka lagu daray dowladda wadanka Mareykanka la keenayo maalmaha soo socda jimciyad ama golaha amniga ee qaramada midoobay maxaaba la keenay hadda dagaal ayaa fooda la isdaray dowladda wadanka Iran waxa sheegtay jawaab kasta oo ka timaada ama weerar walba oo ka yimaada dhinaca wadanka Mareykanka si wanaagsan in ay ugu tooghayaan xoogaga gobonimo doonka ah ee reer Iran inkastoo Mareykanka iyo xulafadiisu ay si weyn ugu samri la'yihiin haddana gudaha wadanka Mareykanka xog-ogaalayaashu waxay tabinayaan Donald Trump in lagu cadaadinayo dagaalka inuu dib u bilaabo Netanyahu ayaana hadda waxa uu la warinayaa in Donald Trump uu markaas ku amray amaba uu ku talageliyay in dagaalka dib loo bilaabo isku soo wada duuba gobolka bariga dhexe gaar ahaan wadamada khaliijka ayaa mar kale dhibaato culus dhadhamin doona Imaaraadka Carabta iyagu fargaar ayaa ku godan ilaalada kacaanka weerarka iyo diyaaradaha droniska iyo gantaalada ay ku weerareen maraakiibta dagaalka ee wadanka Mareykanka ee jooga xeebaha Imaaraadka Carabta durba waxa lagu sawiray sida muuqaal u baahiyay telefishinka dowladda wadanka laga arkayo caruurtii markii ugu horeysay dowladda wadanka Mareykanka iyo Israel ay ku laayeen magaalada Tahran iyo sidoo kale qaar ka mid ah hogaamiyaashii shahiiday muddadii dagaalka dulmiga ku dheexan Israel iyo Mareykankana ay dusha u ridinayeen u soconaya waxaad moodaa markale dagaal in faraha la galay dowladda wadanka Mareykankana arrintan waxa la weeraraya musiibo ay ku noqon doonto maamulka madaxweyne Donald Trump oo weerarkii hore guuldarro aan naxariis lahayn kala kulmay haddana khibrad waxay leeyihiin tan ayaa iqarsan noqon doonta marka tii hore loo eego isku soo wada duuba gobolka bariga dhexe mar kale xaalad culus ayuu wajahaya wadamada carabta iyaguna uguma sii jiraan reer galbeedka qaarkood ayaa iyaguna suurtagal ah sida la leeyahay markan in dagaalka ay la soo galaan dowladda wadanka Mareykanka in dagaalka gobolka bariga dhexe dib ugu bilowdo waxay halis ku noqon kartaa sida la leeyahay jiritaanka madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump dhinaca kalena Congress-ka Mareykanka ayaa iyaguna lagu wargeliyay inuusan Donald Trump mar kale dagaalka dib u bilaabi karin maxaa yeelay muddadii uu dagaalka hore u bilaabay bil ayay ahayd waana dhamaatay way adkaan doontaa sida la leeyahay Donald Trump inuu dagaalkaas sii galo hase ahaatee isagoo ku marmarsoonaya in dowladda wadankeena ay weerartay ciidamada wadanka Mareykanka ayaa la weeraraya dagaalkan sidan inuu ku qaraxay wararkani waxay ku soo kordhay saaxiibadayo haddii Allah weyne waaxidka ogolaado waan idin la wadaagi doono laakiin waxaad ogaataa dowladda wadankeena sida la leeyahay dulqaadkii ayaa ka dhamaaday dhinaca kalena Iran waxay si weyn uga caraysan tahay dagaalka weli Libnaan ka sii soconaya iyo sidoo kale xoogaga gumeys ah oo iyaguna markaas mushkilad adag ay ku haysato Libnaan Israa'iil iyo ciidankeeda ayaa wadnaha farta ku hay dhan walba marka laga hadlayo dagaalada waxaana se intaas si dhan in magaalada Gaza iyaguna weeraradii ay dib ugu bilaabeen ciidanka maamulka gumeysaha Israa'iil guud ahaan gobolka bariga dhexe nabad warkeeda daayabalaya ayaa qiiqaysa hubka la isku cabaysanaya inkastoo xoogaga sunniyiinta sheegtay gobolka jooga ay nacamnayal yihiin inta badan Israa'iil iyo Mareykanka ay isxijinayaan haddana gobolka waxa jooga xoogag si weyn u diidan damaca gurracan xoogaga gumeystaha ee Mareykanka iyo Israa'iil ay horboodayaan gobolka wadanka Libnaan ayaana hadda la weeraraya isaguna in si wanaagsan ay isaga cabirayaan xoogaga gobonimo doonka ah ee jooga koonfurta wadanka Libnaan inkastoo burbur iyo duqeymo daba joog ay dhacayaan 48 saac la soo dhaafayna uu shahiiday mid kamid ah hogaamiyaasha ugu sareeya xoogaga gobonimo doonka reer Libnaan Isbullah la yiraahdo hase ahaatee qof dhintay iyo mid dhaawacmay raggaas midna uma joojiyaan maxaa yeelay Xasan Cabdikariin Nasrallah oo dhintayba cidi uma joojin ciidanka gumeysaha ee doolaalka ee dhinaca wadamada Falastiin iyo Libnaan xooga ku jooga xaalkooda aad ayuu adag yahay waxayna hadda marayaan xeeray shabaq isku ilaaliyaan iska badda iyo duulaan ku qabsadaan haddii hadda Iiraan dagaalkeeda mar uu dib u qarxo Gaza iyada laftarkeeda ciil raman waxa la leeyahay mar kale ayaa xaalado culus ay wajihi karaan xoogaga dulmiga xambaarsan iyo caloosha u shaqaystayaasha afka muslimiinta ka sheegta ee dunida muslimka hadda jooga intooda badan wararkani wuxuu ku soo korwaan idin la wadaagaynaa laakiin ogaada in dagaalkii uu dib u bilowday diryanka madaaficina dhawaan aad daawan doontaan nabadgelyo